Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta sababtale aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kastoo adduunyada ka joogtaan. Mid ay habeen u tahay, mid ay maalin bay u tahayba. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab iyo barwaaqo insha Allah bidmillaahi kariim. Maanta waxyaabaan ka hadli doonana waxaa ka mid ah insha Allah waa dalkeenii hooyo. Adduunyada qof kastaaba wuxuu leeyahay astaan lagu garto iyo dal iyo dhul. Ilaahay baana ku abuuray. Insha Allah bidmillaahi kariim inagu siyaasi ma yihiin xumaan kalena sheegi mayno laakiin bal waxaan ka hadli doonaa intii aragtideen ah. Adduunyadu waqtigan xaadirka la joogo meel kastaaba wacyigeega iyo waayaheegay wadataa. Inagu Soomaali baan nahay waxaana ka nimid dal la yidhaahdo Soomaaliya. Ummad badan oo Soomaaliyeed baa dalkooda ka soo qaxday adduunyadana ku baahday. Waxyaabaha dalkayga ka keenay iyo meelahay ku kala sugan yihiin iyo xaaladday ku sugan yihiin intaba badankeena waan ka dheregsanahay. Haddaba caawa inagoon qofna durayn, inagoon qofna dhaleecaynayn, inagoon wax ataaga qofna ku samaynayn, haddana waxaa muhiim ah inaan ka hadalno war aaway dalkeenii xaguu ku dambeeyey, xaguu u socdaa, maxaa ka dhacaya. Inaga dalkeenu waa Soomaaliya. Waqtigan xaadirka la joogana waxyaabo fara badan baa laga hadlayaa. Ama doorasho ha noqoto, ama isqaqabsi ha noqoto, ama iska dawareeg ha noqoto. War ummad baan nahay Muslin ah. Dal barwaaqo ah leh laakiin haddana ka qatan. Ilaahayna inaguma qadin laakiin inagaas ka qadinay. dalkeenii baan dab ku qabanay maantana marxaladdu ku jira waan ognahay. Haddaba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka waxgaradka xilli baan isbedeli doonaa. Shalay toole waad ogeydeen bil kama soo wada wareegin dhibaatadii ugu dambeysay waddankeena ka dhacday. Qof kasta uu ka dhergsan yahay. Hooyadii maalinta hooyadii weli ilmadeedii ma qalalin. dhowr iyo 30 sano hadda maraysaa inta maalin walba ay dhibaato dhacayso. Maalin kastoo Ilaahay abuurtayna nin boorso sitaa uu inagu shaqaysto. ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta maxaan u noolnahay, maxaan u jirnaa adduunkan, maxaan u nimiday, maxay hooyay noo dhashay, muxuu Ilaahay caqliga inoo siiyey, ma inaan qof u noqono bakoorada u sito uu siduu doonay naga yeelo. shalay toole waad ogeydeen magaalada Muqdisho waxyaabay ka dhacayay waa 30 sano ka hor wixii ka dhacay waaye. xabad la isku rido iyo magaalo la isbaacsado. qof kasta uu ka dhergsan yahay maanta wuxuu waddankeenu ku sugan yahay. sidaas umaan u daawanaa oo korjooguma ka ahaanaa. war ninka siyaasiga waa ninkiina gubay, waa ninkii nolosheena baabiiyey. 30 sano ka hor ninkii godka madow inagu riday waaye. xilli baan ka baxanaa godkan madow, xilli baan isteynaynaa, xilli baan noolaananaa, xilli bay hooyada Soomaaliyeed ka bixi doontaa dhibta iyo silaca iyo gaajada iyo haraadka. waa dhalinyarta Soomaaliyeed. anu shaqsi baan ahay ka mid ah dhalinyarta Soomaaliyeed. adduunyadu xilligii xabaddu way dhammaatay. xilligii xabadda la isku ridayey way dhammaatay.
waa xilligii qalinka wax lagu cunayey. saddexda adduunka ugu quruxda badan lee adduunka la ilaaliyo ayaa waddankeena ugu nasiib daran. ma taqaanin saddexdaasi? anaa inii sheegaya, qofkii garanaya wuu garanaya. waa hooyada. hooyo fara badan oo adduunka ku nooli biisay cuntaa, biiso. hooyada Soomaaliyeedna baaruud bay cabtaa. baaruudda ma taqaanin? waxaan naqaanaa baaruuddaa jirta. ilmaha yare naqanee adduunka ku nool maalinta uu dhasho ilaa maalinta uu ka gaadhayo waxaa loogu tabcaa sida jahoradda loo ilaaliyaa. innagana ilmaheennu waa sidee? gidaarada xabagtu ka cabaan. qodobka saddexaad waa wiilka dhallinyartee soo kacay, hooyadii ay ku soo tabacday, yaanyo ay u soo gaday, maalinta istiraad xooggiisa dhadhabin ama sujuudda xabad lagaga dhufto, ama waddanka ka orduu ka taariibo. ilaa inteen ku jiraynaa markaa waxaas? ilaa intii hooyada Soomaaliyeed saa u dhibbanaan doontaa? ilaa inteen adduunka u noqon doonaa calaamad laysku shaambadeeyo? ilaa halkan gaadhi doonaa? xillimaan isbedeli doonaa? warbal u fiirso. ummad islaamaa nahay, caqli leh. Soomaali baa laynadhaa, wax la ydhaha Soomaalidu way caqli badanta, waa sidan iyo waa sidan. maanta dalkeennu waa sidee? ummadda Soomaaliyeed xagee martay? nin aynu garanayn meeluu ka yimiday, wuxuu haysto, wuxuu aaminsan yahay ayaa malaayiin dalkeena ku qaata. kuweena boorsada sitana horjoogow ah. aaway damiirkii Soomaalinimo? aaway kii islaamnimo? war haddaba ninka dhallinyartow, intaad qof u adeegaysid eed qof kale ushiisa tahay, hooyada Soomaaliyeed saasay ooyi doontaa. maxay kuu dhashay hooyo? maxaa Soomaaliya laynoogu magacaabaa? maxaan calanka iyo juquraafi waddan gaara u leenahay? ma inaan shaambad xun adduunka ku noqonno? wiilka dhallinyarta Soomaaliyeedow, ha noqonin qof ushi. ceshaba mid bay nagu adeeganayaan, ama waddanka madaxa ka ahaado ama macaarid ha ahaado, siduu doonu inaga yeelanaya. hooyaa qaday oon waxba cunin ayaa boodhkii siigada lagu maraa. maalinta alla maalintuu ninkuu kursi fuulana v8 intuu fuulo ayuu siigada ku qariyaa. macnaha dhaska iyo dabaysha waddada markuu marayo xitaa aayar ma socdaan. aaway kii boorsada u siday maalintaas halkaasuu kaga hadhayaa. markuu kugu danaystu meesha kaaga tegayaa, dalkaagina uu cunayaa weliba. imisa ummad Soomaaliyeed ama dhalinyar Soomaaliyeed, wiil iyo gabadh midku doono ahaado, adduunka ku dacdaraysan. imisaa jeelasha ku jira,
imisa dariiqyada seexda timaheen ma koobi karayaan. weligeen masaas ma lahaanana dhalinyartii xilligii dhalatay dowladdeenu ay burburtay ama Soomaaliya ay burburtay maanta dhammaantood waa odayaal. waayo aanu markaa dhamaysto dhibaato ilmahan dhali doonaana wuxuu dhamaysan doonaa dhibaato. ilaahay baan inagu dhaariyay bal u fiirsada hadda maanta iyo askari noo ah ma taqaanaa qofkaas wuxuu aaminsan yahay lama yaqaanaba. adigii caqiidada lahaa, diinta lahaa, islaamnimada lahaa, dalka lahaa ama adduunkaad u taariibtay ama mid waddankii joogaad boorsada u sidaa oon adigana ku aqoon wuxuu doonana kaa samaystaa. maalintuu wax dilku idhaa waa la dilaa, maalintuu ii mudaharaad waa la mudaharaadaa, maalintuu kursi ku fadhiistana god buu inaga galaa, xabad buu ku soo ridaa qofkii maxaan ku dhahay boorsada u riday. masaasumaan ku jiraynaa markaa masaasumaan adduunka nolosha noocaasumaan adduunka iskaga noolaan doonaa. maxaa nahay nin baa beri waddamadan ka mid a afrikaankan ku kulanay nin beri markaasuu intuu yeeli buu yidhi yaa tahay markaasaan ku yidhi Soomaali baanahay. markaasuu yidhi ma dadkii walwalaabaa ka soo jeedaa ma dadkii walwalaa afrikada beri degaad ka soo jeedaa buu yidhi. barnaamijka kusii fogaan maayo sheekooyin aad waayeygu u badan yihiin ayaan halkan la soo fadhiisan doonaa. laakiin maanta waxaan ka hadlanaa waxa weeyaan war ummaday dalkeennii sideen wax uga bedelaa. kuma lihi qof mucaaridu dil oo odhan maayo hebel baa sidana. qof kastaa waqiga joogo wuu ka dharegsan yahay iyo waxyaabaha waddankeena ka dhacaya. qof kastaa wuu og yahay marxaladaha ka jira iyo say wax u dhacayaan. qofna maanta loo sheegi maayo. qof kastoo Soomaaliya maanta hadaad weydiiso wuxuu ku leeyahay dalkeena khatar buu ku sugan yahay. khatar hadduu ku sugan yahay maxaan uga qaban laani waaye. ummadda Soomaaliyeed ay gaar ahaan dhalinyartahay war adduunkan waxaan ka bedelno. war maantaan noolahay beri toole waan dhiman doonaa. dalkeennu hoogii dhibaato ku salomaan ka tegi doonaa. ubadkeennaan uga tegi doonaa. ubadkeennuna waxay noqon doonaan qaar sidaa si ka daran loo cabiidsado. uu ka soo tegayaa meelo kale u tegayaa adduunyo kale la dhaqmaya dad nool oo waddankooga dhistay oo system iyo nidaam le ayuu u tegayaa. uu noqonaya waddankii u tegayaa waxbaad moodaa maalintuu airport ka dhoofo systemkii iyo nidaamkii uu bar in wixiiba intuu ka tago ayuu wuxuu la tegayaa munaafaqad iyo waxaan loo joogin iska dawareeg. ninkan siyaasiga ama dadka siyaasadda inoogu jira inoo taliya nin walba carruurtiisu adduunkay ku nooshahay. jaamacadaha adduunka ugu qaalisan bay dhigtaan. nolosha adduunka ugu sarreeyay ku nool yihiin. hooyadii Soomaalida waddanka lahaydna marna webi baa ku fataha, marna gaajo u dhimataa, marna xabad baa la waraabiyaa, marna inikayga lagu horgowracaa. yaa inoo maqan. cabdiqaasim baa laga hayay xilligii cartay markii Jabuuti lagu dooranayay cidina uma qodno cidina uma maqna ceelna uma qodno. weli waa sidii. xilimaan dad noqon doonaa. ilaahay ummad ma duleeyey ilaa iyadoo isduleyso. inaga isduleynin. war duligaas ka dulqaadno. dadkan siyaasadda inoogu jirana abti barnaamijka sheer gareeya.
qof kastoo Soomaali inuu gaadhaan rabaa anuu taalmaliye laakiin hadal baan leh hadalkaygaasi qof kastoo dameerle inuu gaadhaan rabaa qof kastoo dameerle inuu gaadhaan rabaa nimanka maanta waddankeeni ku loolamaya adduunka waa la loolama waa la tartama waxbaa la kala cunaa doorasho noocay doontaa noqoto Soomaalida ku maamaada togba taagtiibu rogmada nin walbana kaskiibuu kaadi tagaabalay macnaha waxaan ka wadaa doorasho noocay doontaa noqoto wixii la isku afkarto in la fuliyo muhiim waaye in lagu kala baxano muhiim waaye in la kala helaana muhiim waaye in qof waliba wixii Ilaahay u qoray u qaadaana qasab waaye laakiin hadduu cishabo sidii la doonay naga yeelo kii kursiga fulana madaxadaygu bilaabo kii kursiga doonayna uu ka sii darnaado ma hooyada Soomaaliyeed ma habeen iyo maalin ooy hooyada Soomaaliyeed maxay u dhashay maxay inoo dhashay maxaan dad u nahay maxaan u nool nahay ma intayna dhasho ee calool nagu qaado ayna soo koriso ayaan xabadiya sila xadan ugu darnaa haddii min wasaas dameerinay milina damirkiinu maqayeen kaliya waxaan naqanaa sida hebel iyo hebel loo diro hebel waa qabiil kana waa caynkan kana waa sidan waray doonkeena qabiil waxba igama gelin qabiil waxba igama gelin maamul goboleed waxba igama gelin anu waxaan rabaa hooyo Soomaaliyeed oo meel kasto adduunka Soomaali degto maanta haddaan helay waxay ku noolaan lahayd farxad haddaan maanta awoodi karayo laakiin ma awoodo laakiin ummadda Soomaaliyeed hadday gacmaha is qabsadaan way awoodaan hooyada Soomaaliyeed inay haddii xitaa wax kale tahli weydo biyaha nabad gurigeeda ku cabto oon inakaygu caloosha lulatana loo keenin ama meyd ah nabadda gurigeega ay ku fadhido intaa waa la awoodaa Soomaali way awoodaa laakiin yaa noo sheegaya oo nimanka siyaasadda anuu kala qaadi maayo war haddii hooyadiin biisa cunto carruurtiinni meel aad geysateen qaar baa meel ay geystaan aan haysan qaar baa gaajiya silca waddanka ugu dhimanaya war haddaad wax kale u qaban kari weydeen xabadda iyo waxaad ka diisan dhibaatada wax kale haddaad u qaban kari weydeen ninka Afrikaanka ee waddankeena ilaaliya 9 bilood buu ku dhashay wiilka Soomaaliyeed 9 bilood buu ku dhashay maxay isleeyihiin aawo dameerkaaga adiga Soomaaligow aawo dameerkaaga xageed qabatay ma u malaysaa Robert in laynoo soo sameeyo dad wax caagago intuu la soo sameeyay inta waddankeena la keeno inuu waddankeena systemka ka bedelo oo nidaam noo sameeyo oo isku keen toosiyo deetana inuu naga tagayo ma filaysinta maya ma dhaas akhi barnaamijka sheegraya dhalinyarada Soomaaliyeed baan rabaa inuu gaadho oo walaalkiin oo wanaaggiin uu jecel qofna waxba kama rabo madax meeyihi siyaasi meeyihi cidna wax kama rabo ilaaha qafuur raxiim mooyaane laakiin ubucdayda iyo wadnahaygii baa meesha dhex yaalla hooyada Soomaaliyeed ooyaysa ka dhiban ka gaajoonaya ka xabadda ku curyaamay ee maanta itaalo ku kacanaanu lahayn adduunyada cid kula caawisan aanan lahayn ninka dhalinyarta ee maxaan ku dhahay dhibaataysan aan shaqo haysan hooyadaan caafimaad haysan ilmahan waxbarasho haysan xabad iyo siigiyo iyo dhibaata loogu daraa siya dad baa wax kala yaqaanay ana board baan ka wadaa dhaska ummadda Soomaaliyeed intaad huursanaysiin waxyaabahani wax badan baa inaga lumaya oo ninkan siyaasigo allahaaga ka cabso hooyadan iyo dhibaataysana dhibta ka daa
nimankan iska daba wareegaya doorasho iyo wax ka sheekeynayana bal waxaad doontin kala cuno nabadun ku dhamaysta wax nabad un ku dhamaysta waxaad doontin kala cuno koob iyo sagaashan maanta in haddii ugu noqono magaaladii 30 sano lasoo yabyabayay cishaba maxaan ku dhahay system loo soo bedelay maalinba maalinsan soo ahayd maanta in qori la isla dhex maraa oo wax ceeb ah waay wax qof damir loo ogolaado ma ummadda Soomaaliyeed u jeedaan wax dhacaya qofna maanta looga sheekayn maayo wanka siyaasiga kursiga ku fadhiyo kursigan malihid adigu dadkaas kale ninkan macaaridkii wax doonayeen tan baad leedahay tan taad leedana waxay dadkan inaad kursigan ku gaadho wax laga yaabaa carruurtaada inay joogin hooyada inay joogin cid ka joogta magaalada inay jirin baritika mal hadaad kursiga hesho oo filaa xaltu kursiga ka fadhiisanaysa hadaad weydana diyaarad bas ka raacaysa meesha doonta adduunka ka qabanaysa maxaa ka gal adiga cid burburasi wadan burburiyo waxaasi kuma qosaysa adiga nin kasto madaxii maalinta xil ka dago ama wuxuu daga carabta ama meeshu doonu iska daga muxuu degi lahay muxuu guriga degi lahay de ma rabo wax laga yaabaa meedkiisa la keeno waxa wadanka lagu cunaa waa dhalinyarta ubadkeena iyo hooyada Soomaaliyeed bes arilahayna ka cabsan leeniyo magaaladana dhibaatada ka daaya abti barnaamijka sheer gareeya ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta adduunka la gaarsiiyo war Allah laga cabsado boqolaal dhalinyara ayaa habeenii maalin saa u qayleeya war Allah laga cabsado jidka soo la maro ma shaqeynayso ishaba tuugumay noo sabaxaya dadkii baa la kala ootay xagan maamul baa loo ootay xagan kala mid kala loo ootay xagan kala mid kala loo ootay middu ku taagaya haddii maanta yaa la dilaa la yiraahdo hebel buu oranaya wallahi inuu cafinini billahi taala dadna uu xareystay sidii xoolaha ana waxaan ku jiray dadkii xogaa wadanka ka soo baxay dhibaatooyinka xogaa dhaxan kula soo kulkulmay waxaan xasuustaa branchman insha Allah tan horaan inuu sheegan soo diyaarin doona waxaan arki jiray dad la kala xireysto oo la tirsado 1 2 3 4 5 10 kan igeyda 10 ka kala aniga 20 kan aniga dhaaf waan ogoleen markaas way dhalinyar baan ahayn duruuftana ugu qasbisay laakiin wadankayga iyo taasi taala gool badhan abo madow xidhay kan kala mid baa iska xidhay wuxuu doono ka sameystaa ka kala ma maqlo ka kala war kama guro hadii wadanka inta kala soo roog maraysa isaga waxba kama gelin waa la isla soo dhaafayo intii yareeday noo nooleeday xarunta noo haydeen 15 sano shacabku inay dawladda waxba kama qabanay waata dhagaxaanta ay ku jiraan hay shacabku maxaan ku dhahay cishaba qayb yar soo dhisanayeen ayaa maanta xabad isla dhex wareegaya laatan sano markay jiro 10 sano baak dib u noqo 10 sano dib kale nolosheena dib u socod markaa ku jirina xaaladaha wadankeena jira dhamay karimayno wax barnaamij iyo ama hadal iyo waxaan lagu soo koobi karaa ma sheegayo laba qaybood baan la hadlaya saddex qaybood baan rabaa inaan la hadlo qolo waa bulshada ruux leeyahay qof ha u ranaan ha u adeegin qof aan adiga ku adeegin nina waa nimankan koofiyad baalayaasha odayaasha waxbay soo xulayaan iyo waxbay isda wareegaan talaayo wadalku waa dalkiinii ilaahay baan ugu dhaariyay wax ummadda anfaca keena qolada kuraasta ku fadhido ta kursigeedu milid abti waa lagu leeyahay dad baa ku keensaday wixii lagu heshiiyey fuliyo haddaad heshana waa nasiibka haddii kalan ka tag meesha waxa kalan ku daraya nimanka macaaridka waxbaan kuraasta doonaya abta haddaad macaarid tahay haddaad kursi doonayso wanaag ku raadso Donald Trump adduunka ugu madaxadka ayaa dharbaax lagaga saaray meesha war adduunku dadku way tartamaan waxa lagu kala tagaa war caqligeenu ha shaqeeyo
war maskaxdeenu ha shaqayso waa dad damiirlaha noqono ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogtaan khayr baan idin rajeynayaa dhibaatooyinka waddanka ka jiraan ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dhibaatada ilaahay naga qaado farash khayr qabana noo keeno hoggaan cadaalina ilaahay inuu noo keeno anuu siyaasi meehi siyaasadna ma rabo laakiin ummadda Soomaaliyeed dhibteedu waa dhibtayda waayo waxa weeyaan waddankaygii waa dadkaygii waa ehelkaygii waa meesha wadnahaygu yaal wey wadnahayga ayaa yaala hadalka inagu dheereen maayo ummadda Soomaaliyeed aad baan salaamay meel kasta adduunyada joogana dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay warniga hurdada ka kaco war intaad waxyaabo kale eegasiin war maradii bay nagu olashay war sanaan isku dhaano war ninkan siyaasigaan iska ridno war hooyadeen han badbaadino iyo ubadkeena iyo dalkeen iyo diinteen iyo dhaqankeena inanka markuu dhashay maxaa loogu duceeyaa kii dalkiisa iyo diintiisa iyo waxaas loogu duceeyaa malaha wax loogu duceeyaa xabad baan isdhigi ninku xabad ridi yaqaan wax dili karo malaha ducada dhan kale martaan malaha ilaahay naga madhigo wax bilaaw nimco lokeel dhammaantiin adduunyada meel kasta ku joogtiin caafimaad baan idin rajeynayaa barnaamijkan hala share gareeyo like-tan hala saaro subscribe-tan abta saara dhammaantiin guul baan idin rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed guul baan rajeynayaa dhibaatada inuu ilaahay naga qaadan ilaahay ka baraya nimanka boorsooyinka sitana rabbi inuu naga qabtan ka baqaya yaan ka baraya ilaahay insha Allah bidmillahi karim hoggaan cadaalina ilaahay noo dooro ilaahay baa inoo doori ilaahay baa jidka khayr kale marin mid cadaali inoo doori oo waddankeena dhibaatada iyo mushkiladda ka dulqaada cishaba maxaan ku dhahday dhibaato ubadkeena lagu qalanayo iyo namadeenii dhalinyarteeni iyo hooyooyinkeen iyo dadka bini'aadmiyada iska marxa waddankeeni baa waa la iska gataa wixii la doona laga samaystaa intaasoo kun oo madmadowba intay xunuuska cunaan iskaga tago malaayiin dollar ku qaato askarigeenina gaajiyo silib buu dhimanaya ilaahay waxa inaga dulqaado inaga laakiin iska dulqaadi karna Soomaaliya intaad mid eegasiin war waxa meeshiina yaala fiiriya intaad wax kala raadisiin waxaad haysatiin wax idin ku dhow maanta Muqdisho waxa yaalay Soomaaliya waxa yaalay yaban intaas wax kasta inoogu dhow warinta la inoo ilaaliyo ilaahay idin xifdiyo meel kasta adduunyada ka joogtiin ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaalida abooyin adduunka meel kasta Soomaaliya joogto gees to gees aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan rajeynayaa insha Allah bidmada karim waxaan soo wadaa insha Allah sanadka cusub waxaan soo barnaamijkan soo saari doonaa insha Allah barnaamijku ma aha wax qof laga soo diyaariyay wax budhuur uma wax aniga naftayda waa barnaamij insha Allah bidmada karim qof kasta oo dhalinyara uu taaban doonaa waana ka hadlayna waa xaqiiq waa wax itusoo taabsiya maaha wax iska sheekay oo abwaan baa alufay ma jirto mana awaal ma jiro waa wax anigu aan taabtay waay qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeedna waa insha Allah waaneen wuu dareemi doonaa insha Allah dhammaantiin guul baan idin rajeynayaa intaan muuqaalkan muuqaal xika ku kulmi doono dhammaantiin waxaan igaga tagayaa meel kasta adduunyada ka joogtiin kay habeen u tahay habeen wanaagsan kay maalin u tahay maalin wanaagsan kay galab u tahay galab wanaagsan farxad baan idin rajeynayaa dhammaantiin ilaahay heeriyada inaga dulqaado ilaahay dhibta inaga dulqaado dalkeena nabad Allah inagu celiyo qof kasta Soomaali ilaahay waxaan rajeynayaa sharaf inuu ku noolado meel kasta adduunka ku nool yahay walaalkin Ali Jaama salaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatuh